maanta gelinkii hore degmada Ceelafweyn ee gobolkaasi Sanaag soo gaaray wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ka mid ahaa wafdiyada nabadeynta uu yimid degmadaasi Ceelafweyn ergooyinkani uu yimid madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wuxuu maanta markuu soo gaaray gudaha degmada Ceelafweyn kulamo ballaaran la qaatay ergooyinkii iyaguna shalay soo gaaray degmadaasi Ceelafweyn iyo waliba culimadiinka caanka ah Soomaaliland kulankan ay madaxweyne ku-xigeenka iyo ergooyinka iyo culimadiinkana ay wada qaateen ayaa ahaa sidii loo bilaabi lahaa howlaha nabadeyn ee degmadaasi Ceelafweyn iyo halka laga wajihi doono caqabadaha soo noqnoqday ee ka dhacay degmadaasi Ceelafweyn waa kan madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ka waramaya qaabka ay u gali doonaan howlahan nabadeyn ee degmadaasi Ceelafweyn meesha uu nimid hawl aad iyo aad meesha odag oo muddo socotay oo kulay bar iyo inagu calaamad foorxun qarankeena ku ah oo maanta dhamaanteen intii halkan timiday iyo intay naga dambeysaba runtii iyo inta kale in dhageysanaysaaba ay gurmad aan ka wada galayno sidii hawsha dadka walaalaha ah ee shaytaanku dhex shaqeeyay aynu soo afjar lahayn oo runtii dhowr jeer soo murkactay wadana waxa la yiraahdaa qadaraha waa ma shaa facal weeyaan wixii dhacay muxuu dhacay in xageena ma taala diinta islaamka wixii dhacay ilaahay baa qadaray laakiin in mar walba hadana aan ka dadaalno sidii waxaasi uu sii socon lahayno maslaxadiina aynu ka talino sulh ay galno inuu wada nimidna kulay marka arinta sida loo galay iyo ilaa maanta ilaa caawa inuu galay iyada qodobayn doona wixii naga dhiman oo soo dhamaanin dibadna sidii noogu soo gashay waqtiga u horeeyay aan furan karno loo yaalo guddiga doona runtii marka aad iyo aad baad u mahadsantiin waana salaamayana insha Allah hawshan hareeraha ka joogaynayo inaan maartay hawshaasi aynu wada u dhabar adeegno oo muddada intii doonta aynu u qaatee gaar ahaantii intiina kulli hawsha waata u gondodegi doontee maartay u fadhi doontee allo qadari doonay hawsha loo xuli doono ama loo soo xulay waxa laga baahan yahay inaad sabir badan iyo adkaysi badan u yeelataan iyo inaad maartay sida sulxaasi ugu wanaagsan ummadaasi walaalaha maanta cid walba iyaga iska xiga maanta intaas maanta dhibto ka dhacaysaayo mar walba dadka aynu ka gurmanaa ama meel kasta dhib ka dhacayso waa intii isku xigta meel walba in meel kale iska soo duushay maaha oo nasiib darrooyin haysta ka mid tahay in yaabtigo mar walba la kala qadaynayo ama laba walaalo oo laba walaal kala dhaleen maalin kasta la kala qadaynaya runtii waa nasiib darrooyin haysta ka mid tahay ilaahay waxa ka rajeynaa inuu garab galo dhamaanteen hawshaas si khayr ay naga dhamaato Ahmed Maxamed Cilmi Home Cable TV Ceelafweyn.